السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkan waxaan ku baranaynaa sida loo fasiro diaphragm iyo pleura marka oo aad fasiraysid chest radiograph ama chest x-ray. marka cashirkan wuxuu daba socdaa shantii cashir oo hore oo aan kasoo bixinay sida loo fasiro chest x-ray ama chest radiograph. kuwii hore aan kusoo baranay sida loo qiimeeyo technical quality, sida loo qiimeeyo airway, sida loo qiimeeyo bones. cashirka marka waxaan ku baranaynaa sida loo qiimeeyo diaphragm iyo pleura. diaphragmka oo ah muruqa u dhaxeeya caloosha ama waxa loo yaqaano abdomen iyo xabadka oo loo yaqaano thorax. muruqaas oo kala qaybiya oo sida oo parachute oo kale u samaysan ayaan ku baranaynaa ciladaha ku imaan kara oo lagu arki karo chest radiograph. iyo pleura oo ah xuubkan oo loo kala qaybiyo visceral pleura oo ah xuub ku dul wareegsan sambabka naftirkiisa iyo xuub ku dul wareegsan chest wall. marka wuxuu ka koobnaan doonaa marka labadaas qayb oo aan ku kala baran doono hadduu alla idmo. marka xuubabka ku dul wareegsan sambabka waxay yihiin saan hadda sheegnay xuub dul saaran oo khafiif ah oo dul saaran sambabkii dushiisa markii oo sambabka lasoo bixiyo asagoo ku dul dhegsan yahay oo aan naga maxnaha qayb ka mid ah sambabka oo kala waaye oo ku dul dhegsan surface areas. kaas waxaa loo yaqaanaa marka visceral pleura. kan kale wuxuu ku dul dhegsan yahay xabadka dushiisa. kan waxaa waaye haddii oo xaywa muxuu ahaa xoolo oo la qalo oo guriga lagu qalo oo kale aragtid waxaa arkaysaa muxuu ahaa xuubkan birbirqaaya oo muxuu ahaa aad ku arkaysid kaasoo noqon kara marka peritoneum oo ku jira abdomenka ama pleuraha oo parietal pleura oo ah xuubkan ku daboolan xabadka. marka xabadka ama thoraxka labadaas xuub marka oo u dhaxeeya waxaa ku jira fluid aad u yar oo 15 milliliters oo kale ah, kuma jiro wax gaas ah. kaasna wuxuu muhiim u yahay inuu ilaaliyo integrity ama inaysan meesha soo gelin wax neef ama area ah, taasoo marka ka ilaalinaysa inuusan isbedelin pressureka oo ka dhex jira si oo uu shaqeeyo sambabkii sidii loogu talagalay oo ah gas exchange. laakiin labada xuub dhexdood kan oo parietal pleura oo xabadka dul saaran iyo visceral pleura oo ku dul dhegsan sambabka haddii dhexdood uu soo galo wax dheecaan ama dhiig ah ama haddii neef ama area ay kasoo buuxsanto meesha waxaa imaanaya khalkhal inuu galo neefsashadii oo qofka naftiisa halis ay geli karto haddii area tira badan meesha ay soo dhex gasho oo ay keento in sambabkii dhan uu shooqo. sambabka saan arkayno waa buufsan oo kale oo taagan saan arkayno, laakiin haddii labada pleura dhexdood oo ay soo dhex gasho area waxaa dhexaysa in oo meeshii ay kasoo buuxsanto muxuu ahaa waxaa loogu talagelin, taasoo keeni karta marka qofkii in neefsashadii dhibaato ay ku noqoto. marka haddii marka oo meeshan oo kale dhaawac uu soo gaaro, haddii oo qofkii lagu sameeyey surgery ama haddii qofkii dhaawac uu kasoo gaaray xabadka oo ay dhacdo in oo meeshii oo pleuraha oo dhaawac uu soo gaaro oo ay soo daloolanto waxaa dhacaya in area badan ay kasoo aroorto, taasoo keenaysa marka sambabkii in uu shuuqo sida buufin oo la shuuqiyey oo kale, sababtoo ah area ayaa zaaid usoo riixaysa. gaar ahaan waxaa loo yaqaana tension pneumothorax oo ah area oo xabadka banaanka kasoo geli karta laakiin aan banaanka u bixi karin. maxana banaanka ka imaanaysaa valve oo kale oo qofkii waxaa qiyaasi karta haddii dhaawac uu kasoo gaaray xabadkiisa oo wax oo af badan leh oo xabadka laga geliyey oo kale, taasoo keenaysa areadii gudaha inay usoo gasho laakiin banaanka aysan aadi karin, taasoo keenaysa sambabkii inuu shuuqo oo mediastinumkii xataa dhankii kale uu riixmo oo halis qofkaas ugu jiro si degdeg inuu ku dhinto. marka waxaan ku bilaabaynaa cashirka marka ciladooyinka oo lagu arki karo thoraxka oo loo baahan yahay chest radiograph inaad fiirisid waxaa loo yaqaano pneumothorax oo ah in area ay soo dhex gasho parietal pleura oo ah pleuraha oo xabadka dul saaran oo hadda idin sheegayay oo xoolihii markii la qalo fiir aan dhahayay wax oo ifaaya oo birbirqaaya oo ah muxuu ahaa parietal pleura oo ku dul wareegsan
xabadkii iyo visceral pleura oo ku dul wareegsan sambabkiisa. Marka waxaan arkaynaa hadda meeshan aari inay kusoo dhex buuxsantay labada pleura dhexdood, macnaha parietal pleura iyo visceral pleura. waxaan arkaynaa meeshan in oo sambabkiinan uu shuuqay oo uu noqday muxuu ahaa buufin oo aariyadii laga bixiyay oo kale, taasoo keeni karta marka haddii aariyada meesha banaanka ka imaanaysa, haddii qofkaan hadda dhaawac banaanka soo gaaray oo kale uu yahay oo aariyada banaanka ay kasoo galayso, waxay keenaysaa in uu riixo xitaa wadnihii iyo mediasynumkii uu u baxo ee dhanka bidix, oo keeni karta qofkii neeftiisa inay istaagto oo si degdeg ah uu ku dhinto. calaamadaha lagu arkan waxaa ka mid ah marka qofkii oo neef tuur zaid in lagu arko, garaaca wadnihiisa inuu bato, muxuu ahaa blood pressurekiisa hoos inuu u dhaco. laakiin haddii oo pneumothorax uu yahay pneumothorax oo iska yar oo aan heerkan gaarsiisayn hadda saan arkayno, kan waa pneumothorax oo aad iyo aad u weyn, sababtoo ah waxaa shuuqay sambabkii oo dhan oo meeshan kusoo aruuray. laakiin sometimes waxaa dhici karta pneumothorax oo wax yar oo kale oo muxuu ahaa abscissa oo kale ama meel yar inuu yahay oo sambabkii oo hal loob ka mid ah oo kaliya uu shuuqay. kaas marka waxaa laga yaabaa in qofkii calaamad xataa aan isku arkin oo wax symptom qofkii uusan muujinin. soo marka calaamadaha lagu arko pneumothorax haddii ay jirto waxaa waaye in saan arkayna hadda meeshan haddaa fiirsid waxaan arkaynaa xididada waaweyn oo dhiiga geynaya sambabkii ayaan meeshan arkaynaa oo meel kasto. waxaa kaloo arkaynaa densityga oo uu leeyahay sambabkii oo grey ka dhigaya, laakiin meeshan haddaa fiirsid waa mugdi. taas waxay noo tilmaamaysaa sambab inuusan ku jirin, soo waxaa lumaya calaamadihii lagu garanayay sambabka sida xididadii oo kale oo dhiiga geynayay. sidoo kale waxaad arkaysaa sambabkii oo collapse noqday ama shuuqay ayaad si caadi u arki kartaa. haddii uu yar yahayna waxa waaye in oo muxuu ahaa oo si carefully u jeegaraysaa. sometimes waa adagtaa in la fiiriyo, xataa waxay noqonaysaa in oo markii x-ray la qaadayo waxaa loo qaadaa qofka neeftiisa inuu neef badan qaato kadibna uu isku celiyo, waxaa loo yaqaanaa inspiratory. haddii kale waxaa la samayn karaa waxaa loo yaqaana expiratory, qofka in oo loo sheego in uu neefsado, neefta macna banaanka u bixiyo, taasoo marka oo boomborinaysa in la arko haddii uu jiro pneumothorax. waxaa loo kala qaybiyaa marka waxaa loo yaqaano large pneumothorax iyo small pneumothorax. qaabka lagu qiimeeyana waxay tahay meeshan oo muxuu ahaa ribcageka iyo waxaa la fiiriyaa iyo sambabka meeshuu leeg. haddii sambabkan hadda oo pneumothorax oo kale meeshan oo kale uu ahaan lahaa, waxaa la qiimeeyaa geeska ilaa inta. haddii 2 centimeter uu ka weyn yahay waxaa loo yaqaanaa large pneumothorax. haddii 2 centimeter uu ka yaryahay saan oo kale hadduu ahaan lahaane wuxuu ahaan lahaa small pneumothorax. waxaa kale marka calaamadaha kan lagu garto x-ray waxaa ka mid ah haddii oo qofkii oo uu seexdo oo dhawr uu seexdo x-ray laga qaado, waa inuu supine ahaado. supine oo laga wado qofkii dhawr inuu seexdo kadib x-ray laga qaado, in oo sulcuskan macnaa meeshan oo anglekan uu noqdo deep, waxaa loo yaqaanaa deep sulcus sign. kaas waa calaamad kale oo lagu garto pneumothorax, laakiin wuxuu kaliya sax yahay haddii qofka isagoo supine ah oo laga qaado si loo boombooniyo pneumothoraxka ama shuuqitaanka oo sambabka si loo arko. arkeen hadda sambabkan meeshan ayuu kusoo shuuqaya aan ku arki karno borderka oo visceral pleura uu leeyahay. marka pneumothorax meeshan ayaan ugu soo gudubnay. hadda waxaan u gudbaynaa waxa loo yaqaano pleural effusion, kaasoo ah dheecaan soo kala dhexgalay visceral pleura iyo parietal pleura. kan saan arkayno waa visceral pleura xuubkan oo cad, kanna waxaa waaye parietal pleura oo ku dul dhegsan muxuu ahaa xabadkii. soo marka haddii labadood uu soo dhexgalo wax dheecaana, marka pleural effusion waa macnaa general wax walbo dheecaan oo soo dhexgala. marka dheecaankan wuxuu noqon karaa biyo sida hydrothorax oo kale, wuxuu noqon karaa hemothorax oo ah inuu dhiig uu kasoo dhex buuxsamo haddii qofkii oo dhaawaca kale uu kasoo gaaro xabadka. wuxuu noqon karaa muxuu ahaa wax malax ah, wuxuu noqon karaa waxyaalo oo lymph tissue ayuu noqon karaa. markii la yirahdo pleural effusion manoo sheegayo waxa dheecaankaasuu ka kooban yahay, sababtoo ah x-ray laguma arki karo, laakiin waa catch all term. xasuusno ma kuu sheegayo nooc uu yahay, waa erey kuu sheegaya in dheecaan uu soo dhexgalay meeshaas. soo marka calaamada lagu garto muxuu ahaa pleural effusion waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano meniscus sign iyo
opacity in oo arki weysid diaphragmka in uu lumo cardiac silhouette oo xashir kale aan kusoo baranay oo wipe out uu ku dhex macno wax cad uu noqdo waxaa kale lagu gartaa marka waxaa loo yaqaana meniscus oo ah haddii oo muxuu ahaa biyo meel lagu shubo gaar ahaan dhalooyinkan yararka laboratory oo chemistry oo la isticmaalo oo volumeka aad iyo aad u yar lagu fiirinayo wuxuu sameynayaa biyaha waxaa loo yaqaano meniscus oo ah in biyaha ay leeyihiin waxaa loo yaqaana surface tension oo ay isku dhegdhegaan taasoo keenaysa marka in oo geeska labada gees ay u bataan dhexdan uu noqdo waxa oo muxuu ahaa concave soo marka calaamadan ayaa lagu gartaa in meeshii dheecaan uu ka buuxo sababtoo ah biyihii ayaa waxay sameynayaan sida oo meniscuska oo kale sababtan waxay tahay marka haddii dheecaan uu soo dhex galo labada pleura dhexdood absorption laguma sameyn karo sababtoo ah pleuraha waxaa ku yaala epithelial cells kuwaasoo dhuuqaya waxay dhacaan oo soo galay haddii 15 milliliter uu ku yaray macnaha 15 milliliter waa wax aad iyo aad u yar laakiin haddii 15 milliliter uu ka bato dhacaanka soo dhex galay labada pleura dhexdood pleuraha unugyada ku yaala awood uma laha in ay biyahaas meesha ka qaadaan oo ay u celiyaan systemic circulation taas waxay keenaysaa marka meeshii dhacaan uu kasoo buuxsamo marka waxaa loo kala qaybiyaa dheecaanka meesha ku jira pleuraha labada pleura dhexdood waxaa loo yaqaana exudate iyo transudate labadan waxay kala yihiin inta uu la eg yahay dheecaanka meesha ku jira protein content macnaha concentrationka oo proteinka oo dheecaankaas ku dhex jira ayaa waxaa loo kala qaybiyaa haddii 30 gram per liter uu ka badan yahay dheecaanka meesha ku jira macna inta protein ku jirta haddii 30 gram uu ka badan yahay halka liter waxaa loo yaqaanaa exudate haddii 30 gram uu ka yaryahay halka liter waxaa loo yaqaanaa transudate sababta keenta waxay tahay jirooyinka keena ayaa kala duwan exudate oo proteinka uu ku badan yahay waxaa keena haddii permeability-ga oo muxuu ahaa capillary macna xididada yaryar ee capillary loo yaqaano haddii ay furmaan oo dhacaan badan uu kasoo dhex baxayo oo lymph vessels awood u yeelan waayaan dhacaankaas inay celiyaan sida for example haddii qofka cancer uu ku dhaco oo kale waxaa adkaanaysa dhacaanka in la celiyo transudate waxaa keenaya badanaa sida nephrotic syndrome oo kale muxuu ahaa haddii qofka oo proteinka uu lose gareynayo waxaa dhumaya waxaa loo yaqaano osmotic pressure oo ah in dhiigga uu dhex joogo xididada dhiigga dhexdiisa sababta keenaysa in dhiigga uu dhex joogo xididada dhiigga dhexdiisa oo san jirka gudihiisa uu sii faafaynin waxay tahay proteinyaal ayaa ka buuxa proteinyaalkaas oo ka dhigaya dhiigga inuu dhex joogo oo soo jiidanaya macnaha kusoo celinaya xididadii dhiigga soo marka haddaadan aqoon osmotic pressure ha isku reerinin waxaa loo yaqaana hydrostatic pressure iyo capillary osmotic pressure haddaadan aqoon mar kale inuu noqon doonta ama google search ayaa ku samayn kartaa waxaa loo yaqaana capillary hydrostatic pressure iyo capillary osmotic pressure kuwaasoo marka oo define gareynaya in dhiigga uu dhex joogayo xididadii dhiigga ama banaanka inuu baxayo uu keenayo waxaa loo yaqaana edema ama pleural effusion inuu keeni karo waxa kale marka oo muhiim ah si pleural effusion loogu arko chest x-ray waa inuu ahaada volume aad u badan ku dhawaad 250 milliliter ilaa 600 milliliter waa inuu gaaraa dheecaankaas si loogu arko chest x-ray taas marka waxay ku sheegaysaa haddii wax dheecaanka ku dhex jira uu yahay wax ka yar 250 100 milliliter 150 milliliter inaan chest x-ray lagu arki karin halka kaliya lagu arki karo waxay tahay haddii lateral x-ray qofkii laga qaado oo macnaha gees raaj loo saaro ayaa la arki karaa sababtoo ah sanbabka sidiisaba wuxuu u badan yahay qaybta gadaal macnaha qaybta gadaal ayuu u badan yahay qaybta hore waxaa soo qarinaya muxuu ahaa beerka ayaa kor usoo qarinaya gadaal ayuu jiraa marka sanbabkii taasoo keenaysa marka dheecaankii inuu meeshan ka buuxsamo oo x-ray beamkii uusan arki karin macnaa dhankaas ayuu u dhaafayaa beamkii x-rayga ahaa haddii oo dhankan uu ka imaado soo marka dheecaanka hadduu yar yahay hoostan ayuu fariisanayaa laguma arki karo AP iyo PA view soo marka gees ama waxa loo yaqaano decubitus oo laga wado raajo gees haddii qofka laga qaado ayaa lagu arki karaa haddii dheecaanka uu yar yahay
soo marka haddii qofka marka pleural effusion oo aad iyo aad u weyn uu ku dhaco calaamadaha lagu arko waxaa ka mid ah in diaphragmka iyo mediastinumka uu geeska u baxo oo dhankan loo riixo waxaan hadda x-raygan waxaa waye x-ray oo normal ah laakiin waxa ku dhex kara waxay tahay in oo waxaan oo dhan oo ah mediastinumka iyo xataa wadnaha iyo muxuu ahaa trakeyaha in bidixay u baxaan in oo muxuu ahaa horizontal fissure oo ah fishirka ama meesha kala qaybisa upper lobe iyo muxuu ahaa middle lobe in oo kor uu aado in meniscus sign aad ku aragtid oo hadda waxa hore aan soo aragnay meniscus sign oo ah dheecaanka calaamada uu sameeyo oo labada lateralka uu bato iyo in meeshan loo yaqaano costophrenic angles oo wax cad ay noqdaan macna meeshan ay qarsoonto oo bihii ay qariyaan oo lagu arki karo radiographka sidoo kale waxa loo yaqaan cardio phrenic angle oo ah angle-ka u dhaxeeya wadnaha iyo diaphragmka inuu qarsamo sidoo kale costophrenic angle-ka iyo muxuu ahaa cardiophrenic angle-ka oo qarsama soo marka calaamadaha lagu arko markii radiograph la fiirinayo calaamadahan ayaa ka mid ah pleural effusion intaanan ka bixin marka pleural effusion calaamad kale ama nooc kale oo lagu arko waxaa ka mid ah in oo dhiiggii uu soo dhex galo hal meel ka mid ah ama gees ka mid ah sambabkii taas marka waxay keenaysaa inaan la arkin example hore aan soo fiirinayna wuxuu ahaa biyo oo flow sameynaya macnaha oo gravity-ga meel walba oo gravity-ga uu aado ama dhankan oo dhan qarinaya macnaa biyo oo soconaya ay ahayn oo meel kasta sambabka aadaya oo ku xiran qaabka qofka u taagan haddii qofka u seexdo oo geeskan usoo buuxsamayo haddii qofka dhan kale u socdo hoos aadaya macnaa gravity-ga la soconaya kan loculated-ka ah biyo oo gravity la soconaya ma ah meel ayay ku dhex jiraan sida oo lateral fissure ama oblique fissure ayay ku dhex jiraan oo aysan ka baxaynin haddii qofka oo uu seexda xataa x-ray laga qaado sidan ayuu ahaanayaa oo uusan dhaqaaqayn marka waxaa adag haddii loculated pleural effusion ay tahay si drainage loogu sameyn lahaa waxaa kaloo adag in la kala garto in waxaan pleural effusion inuu yahay ama inuu yahay empyema oo ah in malax ay kasoo buuxsantay oo meeshaas oo dhaawac ka jiro ayaa la kala garin karin soo marka waxay noqonaysaa qofka investigation kale in lagu sameeyo si loo ogaado waxa meeshaas uu yahay macnaa x-ray wax diagnosis loogu sameyn kara ma ahan waxa kale marka oo muxuu ahaa dhac kale waxay tahay in oo dheecaan uu kasoo dhex buuxsamo sambabkii dhexdiisa iyo diaphragmka sambabka iyo diaphragmka dhexdiisa ayaa waxaa soo geli kara effusionkaas marka wuxuu kaga duwan yahay pleural effusionka kale in oo biyihii dhex daadinaya sambabka oo dhankaan oo dhan qarinaya inaysan ahayn ee meeshan uu yahay calaamada lagu gartana waxay tahay in apexka oo diaphragmka apex waxaa laga wadaa haddii hadda aan sameyno cone oo kale macnaa geed traffic oo kale meeshan kore ee waxaa loo yaqaanaa apex oo ah meesha ugu sareysa buur oo kale haddaad sawirtid macnaa buurta meesha ugu sareysa ee waxaa loo yaqaanaa apex soo marka diaphragmka sida caadiga ah apexkiisa meeshaan oo kale ayuu ahaadaa macnaa meesha oo dhexda ayuu apex meeshaas ugu sareysa u noqdaa saan arkayna marka diaphragmkan apexkiisa meeshaan waayo macnaa apexka wuxuu u baxay geeska calaamadaas marka waxay noo sheegaysaa in oo dheecaan uu soo dhex galay sambabkii iyo diaphragmka dhexdiisa muxuu ahaa haddii dhanka oo muxuu ahaa dhibaatada ay ka jirta ay tahay sambabka ee dhanka midig haddii dhanka bidix cilada ay tahay waxaa kala fogaanaya gastric bubble oo ah neefta ku dhex jirta sambabka oo lagu arki karo chest radiograph oo hadda meeshan oo si clearly aan ugu arki karno iyo waxaa kala dheeraanaya diaphragmka dhexdiisa gastric bubblekan iyo macnaha left hemidiaphragmkan aad ay isku dhow yihiin laakiin haddii meeshan oo ay soo kala dhex galaan dheecaan macnaha sambabkii iyo diaphragmkii oo dhanka bidixda ahaa haddii ari ay soo dhex gasho waxaa dhacaya in gastric bubblekii meeshan oo kale uu imaado halkii meeshan uu ka ahaan lahaa inta oo kale ayuu imaanaya marka taas waxay ku sheegaysaa in dheecaan uu soo kala dhex galay sambabkii iyo diaphragmka hadda marka aan sii gudubno jirooyinkii kale aan ka hadlaynay oo pluraha ah waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano pleural thickening in plurihii ama xubkii ku dul wareegsanaa sambabkii kaasoo noqon kara parietal pleura ama vessel pleura
oo uu adkaado macnaa inflammation haddii uu ku dhaco inflammation oo ah waxaa loo yaqaanaa caabuqa for example haddii qofka tuberculosis oo kale uu qabo oo sanooyin badan uu hayo waxaa laga yaabaa in plorihii uu sameeyo inflammationkaas wuxuu keenayaa marka wax adag inuu noqdo oo lagu arki karo marka geeska wax kasoo baxaya oo densitygiisa uu batay sababtoo ah xuub oo dul wareegsan oo densitygiisa uu weyn yahay ayuu noqonayaa kaasoo qarinaya marka muxuu ahaa sambabkii dhan si fiican in loo arko waxaana qofka lagu samayn karaa CT scan oo si clearly ah loogu arki karo meesha ay ku dhacday pleural thickening so marka pleura haddii aan kasoo gudubno waxaan u gudbaynaa diaphragmka marka diaphragmka waxaa lagu arkaa jirooyin markii la fiiriyo chest radiograph oo ka mid ah in kor uu kaco sida baarashoodkii oo kale kor uu kaco saddex arrin ayaana keenta in diaphragmka kor u kaco midda koowaad oo ah in oo volumekii oo sambabka uu yaraado taas waxaa keeni kara in qofka sambabkii qayb ka mid ah laga gooyey ama sambabkii dhanba laga gooyey oo hal qayb jirkiisa ka mid ah surgery qofka lagu sameeyo for example haddii qofka cancer uu ku dhacay oo sambabkiisa midig oo kale laga bixiyey ama gobol ka mid ah sambabka midig hadii laga bixiyey diaphragm kor ayuu aadayaa sababtoo ah pressurekii hoos uu celinayay ayaa yaraanaya marka wuxuu helayaa awood kor uu ku aado sidoo kale haddii mid ka mid ah lobeska oo sambabka uu shuuqo oo collapse oo ku dhaco asana waxaa lagu arkayaa in kor u kaco cilada labaad ee dhici karta in diaphragmka oo kor u kaco waxaa ka mid ah haddii dadka qaar oo ku dhashtaan muruqa uu ka kooban yahay diaphragmka oo aan si fiican u kobcin qofka markii caloosha uu ku jiray macnaa cunug markii caloosha uu ku jiray wuxuu noqonaa wax qof uu ku dhashay macnaa congenital ah taasoo ah korid la-aan muruq ka mid ah muruqyada diaphragmka taasoo keenaysa marka in connective tissue wax ah oo kor u kaca oo loo arka macnaa maadaama muruqii uusan si fiican u korin waxaa kaloo lagu arkaa diaphragm kor inuu u kaco haddii qofka dhaawac uu kasoo gaaro nerve damage for example neerfaha oo innervationka uu keena diaphragmka waxaa loo yaqaana phrenic nerve oo kasoo baxa muxuu ah muruqyadan oo cervicalka ah cervicalka macnaha qoorta kasoo baxaan waxay soo dhex maraan thorax ayagoo marka oo u gudbaya labada diaphragm labada gees ka dul maraya haddii marka qofka surgery oo kale lagu sameeyo waxay keeni kartaa in dhaawac uu soo gaaro muxuu ahaa phrenic nerve kaasoo go'i kara ama dhaawac soo gaari karo ama qofka xataa haddii oo upper motor neuron disease uu ku dhaco macnaa cudur oo jiro maskaxda oo kale haddii ku dhacdo stroke oo kale haddii uu ku dhaco oo meeshii laga maamulayo diaphragm dhaawac uu kasoo gaaro oo uu ku dhici karto paralysis inuu noqdo marka taas waxay keenaysaa diaphragmka kor inuu u kaco taas waa qaybtii labaad qayb saddexaad waxay tahay diaphragmkii hoos in laga soo riixo baarashood oo kale hoos laga soo riixa sababta oo hoos looga soo riixi karana waxay tahay in oo cancer uu ku dhaco spleenka oo kale ama beerka haddii beerka carcinoma uu ku dhaco ama metastasis cancer meel kale ka yimid beerkii uu ka baxo oo beerkii uu weynaado waxay keenaysaa in kor loo soo riixo muxuu ahaa diaphragmkii oo kor u riixo sambabka waxaa kaloo keeni karta waxa loo yaqaana saphrenic abscess in oo dhacaan oo malax ay kasoo buuxsanto diaphragmka hoostiisa sidoo kale malignancy ama abdomenka in distension uu ku dhaco oo dhacaan uu kasoo buuxsamo soo marka calaamadahan dhan waxay noo sheegaan diaphragmkan waxaa arkayna hadaa fiirisid left diaphragm iyo right diaphragm waxaa arkaynaa diaphragmkan kor inuu aaday sababtana waxay tahay qofkan waxaa lagu sameeyey lobectomy gobol ka mid ah sababka ayaa laga gooyey maybe cancer inuu ku dhacay oo loogu gooyey sidoo kale kan waxaa arkaynaa waa diaphragmkii oo kor u kacaysan arkayna waxaa arkaysaa diaphragmkan oo dhanka oo badaxda meel uu joogo iyo kan meelsha uu aaday waxaana aad iyo aad ugu kala fogyihiin waxa keenana waxay tahay qofkan waxaa cancer ugu dhacay beerka kaasoo keenay marka kor inuu u riixo diaphragmka oo uu pressure gareeyo sambabkii sidoo kale qofkan wuxuu ku dhashay diaphragm oo waxaa loo yaqaan eventration kaasoo ah in muruqii diaphragmka uusan kobcin taasoo keenaysa marka waxaan connective tissue-ga oo diaphragmka ah in oo kor u kaco maadaama muruqii uusan si fiican u samaysmin taasoo keenaysa marka in oo loo maleeyo meeshan in uu yahay waxyaalo opacity alaag wax lagu garanayo waxay tahay oo arki kartaa in oo lung marking ama calaamadaha oo meeshan inuu ku jiro sambab oo clear ah ee meeshan ku arkayna xididadii oo
waa sambabka. tan marka waxay noo sheegaysaa in oo qofkan uu ku dhashay macnaha ciladan oo diaphragmka uusan kobcin. so marka calaamada kale aan soo sheegnay waxay tahay haddii qofkii oo diaphragmkiisa oo paralysis uu ku dhaco oo phrenic nerve dhaawac uu kasoo gaaro oo kale. kan waxaa arkaynaa marka diaphragmkan oo muxuu ahaa midigta oo normal ah iyo diaphragmka oo dhanka oo bidixda ah oo kor u kacaysa arkeyna. so marka waxay noo tilmaamaysaa in dhaawac uu kasoo gaaray qofkan paralysis. haddii si carefully u fiirsidna waxaa arkaynaa qoftan inay tahay qof dumar ah, sababtoo ah meeshan waxaan ku arkaynaa shadowga oo breast shadow ayaan meeshan si fiican ugu arkaynaa, laakiin meeshan haddaa fiirsid ma lahan. meeshan waxaa laga rabay dee qoftan dumar tahay in breast shadow aan ku aragno, laakiin ma lahan. taas waxay ku sheegaysaa qofkan maybe cancer inuu ku dhacay oo laga gooyey breast oo dhanka oo bidixda ahaa in laga gooyey. so marka immediately waxaa arkaysaa meesha dhibaatada ay ka imaan karto surgery qofkan inuu galay. sidoo kale waxaa arkaynaa surgery oo qofkan lagu sameeyey wadnaha qayb macnaha sternumka dhexda ah oo aan arkayna benyaan oo la geliyey, taasoo marka noo sheegaysa in surgery oo dhanka mediastinumka lagu sameeyey maadaama uu soo dhex marayo phrenic nerve mediastinumka oo dhaawac meeshaas uu kasoo gaari karo in oo paralysis ay kaga dhacday, sababtoo qofkan valve ayaa laga bedelay aortic valve, taasoo keenaysa marka in surgery oo complex lagu sameeyo open heart surgery oo dhaawac u keeni karta phrenic nerve. haddaan sii gudubno marka cilada kale oo lagu arka diaphragmka waxaa ka mid ah in area lagu arko diaphragmka hoostiisa. meeshan waxaan arkaynaa area soo dhex gashay ama neef soo dhex gashay diaphragmka hoostiisa. calaamadan waxaa loo yaqaanaa pneumoperitoneum, waxayna daliil u tahay in shay ka mid ah ama organada ku jira caloosha ama abdomenka in oo uu baqay, sida oo appendixka oo kale, ama qofkii haddii uu qabo gastric oo duodenal ulcer oo muxuu ahaa calooshiisa ama duodenumka in uu baqay oo wax ku jira calooshii uu ku dhex daatay peritoneumka dhexdiisa. wuxuu kaloo noqon karaa diverticulitis ama diverticulum oo asana dilaacay oo wixii ku dhex jiray wasaqaha ku dhex daadiyey caloosha dhexdiisa. kaasna wuxuu noo keenayaa in lagu dhex arko muxuu ahaa area diaphragmka hoostiisa. so marka waa calaamad aad iyo aad muhiim u ah haddii pneumoperitoneum la arko qofkan in CT scan lagu sameeyo oo dhici karto in xataa xidid splenic artery oo kale ama splenic vein ama muxuu ahaa aortic macna aneurysm waxay noqonaysaa qofkan xaal halis ah oo u baahan si degdeg ah CT scan in loogu sameeyo oo u baahanaan karo emergency surgery in lagu sameeyo. marka waxaa jira wax laysku qaldo pneumoperitoneum oo ah muxuu ahaa neef oo diaphragmka ka hooseysa oo u dhexaysa macnaa diaphragmka iyo beerka ay neeftan u dhexaysaa. calaamadan waxaa jirta marka waxaa loo yaqaano Chilaidit sign, kaasoo ah neef lagu arko asana dhankan oo loo maleeyo pneumoperitoneum, laakiin kan ma ahan pneumoperitoneum. area soo dhex gashay ma ahan diaphragmka iyo beerka dhexdiisa, waa colon ama muxuu ahaa mandhexirada waaweyn ama bowelka oo soo kala dhexgalay muxuu ahaa liver iyo diaphragmka. waana marka badanaa symptomless, calaamad qofka laguma arko oo muxuu ahaa serious ah. so marka waa muhiim in la kala garto in waxaan uu yahay pneumoperitoneum. calaamada lagu gartana waxay tahay waxaadan arkaynin calaamadaha lagu garto mandhexirka. meeshan waxaan arkaynaa mandhexir oo calaamadihiisa oo cad tihiin, sababtoo ah maxaa arkaynaa hostra ama calaamada lagu garto muxuu ahaa mandhexirka waaweyn oo muruqyadaas oo geeska oo uu kaga dhegsan yahay oo noo tilmaamaysa shakliga macnaha oo na tusaysa mandhexirka oo weyn ama large bowel. so marka haddii oo wax caloosha ku dhex jiray ama organ caloosha ku dhex jiray uu dilaaco, ha noqdo appendixka, ha noqdo muxuu ahaa gallbladder, ha noqdo peptic ulcer macnaa calooshii ama duodenumkii ama diverticulitis waxa ay keentay ama xidid dilaacay ha noqdo, pneumoperitoneum waa muhiim CT in lagu sameeyo. laakiin Chilaidit sign ma ahan wax serious ah, waa bowel ama mandhexir soo kala dhexgalay muxuu ahaa liver iyo diaphragmka. calaamada kale oo lagu arko chest x-ray waxaa ka mid ah haddii qofka ay ku dhacdo hernia
oo caloosha qofka ay kusoo laabato thoraxka sida caadiga ah caloosha waxay ka hooseysaa diaphragmka asagoo caloosha meeshaan ay fadhiso caloosha meeshan ay fadhisaa waxay ka hooseysaa diaphragmka laakiin sometimes waxaa dhaxaysa in calooshii gadaal ay u laabato oo thoraxka ay gasho ama xabadka ay u laabato kanaan arkaynaa oo diaphragmkii oo ay kasoo kormarto marka Hyde's hernia calaamad lagu garto waxay tahay wadnaha gadaashiisa in lagu arko lucency ama meel aariga ka buuxdo oo ka dambeysa wadnaha dhexdiisa waana clear oo aan arkayno xadka uu leeyahay calooshii oo kusoo laabatay thoraxka kaas asana waxaa loo yaqaanaa Hyde's hernia waxaana calaamadaas lagu arkaa dadka badanaa ka cawda wuxuu ahaa reflux symptoms muxuu ahaa macnaha qofkii oo uu ku dhacay acid badan oo gadaal ugu soo laabanaysa waxa dadka gastric dhahan iyo muxuu ahaa laabjeexa iyo waxaas dadka lagu arka ayaa badanaa lagu arkaa in oo Hyde's hernia ay ku dhacdo waxay halis ugu jiraan macnaha in acid badan ay kaga soo laabato gastroesophageal junction ayaa gadaal usoo galay thoraxka oo keeni karta inuu dhaawac uu gaarsiiyo muxuu ahaa epithelial layer oo ku yaala esophaguska soo marka haddii aan sii gudubno calaamada kale oo aan ku barnayna waxay tahay waxa loo yaqaano pneumomediastinum oo ah in aari ay soo dhex gasho mediastinumka dhexdiisa kaasoo marka aan ku arki karno meeshaan aan arkayno pneumomediastinumka oo aari ay soo gashay meeshaan aan ku arki karno clavicalka korkiisa sidoo kale waxaan arkaynaa heart border left heart border oo soo gashay aario taas asan badanaa waxaa keena haddii uu qarxo esophaguska ama tubada raashin ka soo qaada muxuu ahaa afka ilaa caloosha geysa haddii esophaguska rupture uu ku dhaco haddii qofkii uu ku dhaco trauma ama accident haddii qofka surgery lagu sameeyo oo cardiac surgery ama lung surgery any surgery haddii lagu sameeyo waxaa dhici karta in aaria lagu arko matag xad dhaaf ah dadka qaar oo asma qaba haddii lagu arko ayadan waxaa dhici karta in oo aragtid aari soo dhex gashay mediastinumka dhexdiisa mediastinum macnaa pneumomediastinum ayuu kaasi ahaa cagsigiisa waxaa jira wax loo yaqaano pneumoprecardium aari inay soo dhex gasho pericardiumka dhexdiisa pericardiumka oo ah muxuu ahaa wadnaha xuubka uu ku dhex jiro wadnaha wuxuu ku dhex jiraa xuub aad u weyn oo sidii jawaanka oo kale ah oo ku ilaalsan yahay marka xuubkaas dhexdiisa haddii aari ay soo gasho waxaa loo yaqaanaa pneumoprecardium waxaan u arkaynaa si clearly ah haddii meeshaan aa fiirisid waxaan arkaynaa meel oo lucency ah ama madow ah taas marka waxay noo sheegaysaa aari inay kasoo dhex buuxsantay muxuu ahaa pericardiumka dhexdiisa soo marka haddaa la barbar dhigtid pneumomediastinum iyo pneumoprecardium pneumomediastinum wuxuu ahaa mediastinumka macnaa qaybtan dhexe oo dhan ay aari soo gashay laakiin pericardiumka dhexdiisa kuma jirto pericardiumka dhexdiisa aarida kuma jirto waana wax aan clear ahayn macnaa shadow oo clear ma ku siinayo laakiin haddii aari ay soo dhex gasho pericardiumka dhexdiisa waxaa u arkaysaa si clearly ah korna uma sii gudbayso oo maku arki kartid kor sababtoo ah wuxuu ku ekyahay pericardiumka meelaha ay kasoo baxaan xididada waaweyn ayuu ku ekyahay soo marka haddii aan soo koobno marka waa inaa isweydiisaa in oo markii aad jeegaraynaysid diaphragmka iyo pluraha in oo diaphragmka sizekiisa iyo qaabkiisa uu normal yahay in aari aysan soo gelin mediastinumka iyo pericardiumka iyo in oo sambabkii calaamadihiisa ay ku jiraan thoraxka